toban eedeysano oo sagaal ka mid ah ka shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka sida agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdullaahi Xaanshe Cali, Maxamed Buule Maxamed, agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda Mahdi Abshir Maxamed, madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka Faarax Yuusuf Maxamed, maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka Naciima Cabdiqaadir Maxamed, maamulaha mashruuca taranka iyo hooyada Axmed Aadan Maxamed, agaasimaha waaxda caafimaadka guud Dr. Cabdiqaadir Wehliye Afrax, agaasimaha waaxda saadka iyo adeegga caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Bashiir Cabdi Nuur, xisaabiyaha mashruuca malaariyada iyo HIV Sumaya Axmed Cismaan, xisaabiyaha mashruuca TB-da ee wasaaradda caafimaadka ayaa ay halkan ka bilaabatay maxkamadeentooda. waxaa dhammaan lagu eedeeyay masuq. sidoo kale eedda dacwad qaadista waxaa ku jira agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Guuleed Maxamed Ibraahim. Cabdiraxmaan Siciid Axmed oo ah gudoomiyaha dacwadan ayaa ugu horeynba u jeediyay eedda loo haysto 10 eedeysana oo ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka. dambigan waxaa dhibana ka ah ummadda Soomaaliyeed oo loogu talagalay intooda tabarta yar in wax loogu qabto. taariikhda uu dambigana dhacay waxay ahayd 2017 2018 2019 iyo 2020 goobtuna waxay ahayd uu ka dhacay xaafadda March ee degmada Waabari, degmada Yaaqshid iyo xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya. eedeysanayaasha mid kasta waxa u furan 3 jawaabood midkood. dambigaasi ma gashay mise maad gelin mise doo sharci baad ka qabtaa. labada dambe waxa kaaga jawaabi kara qareenkaaga si waafaqsan qodobka 104 faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. intaas kadib qareenada eedeysanayaasha kaga wakiilka ah dacwadan ayaa dood sharciyeed isku hor istaagay soo jeedinta xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka. waxay arintaas khaladkaas waxay ka dhalatay in la khilaafay faqradaas. waa boontiga koowaad ee surtaagayga. arrinta saddexaad waxay tahay mudane gudoomiye mudane halgarsoorayaal qodobada eedda oo khilaafsan gabi ahaanba dhacdada faldambiyeedka la tilmaamay ee eedda lagu tilmaamay iyo cadeymaha la soo bandhigay intaba. xarafka G ama ga qodobka 17aad faqradiisa koowaad ayay khilaafsan tahay eedda aan ka difaacayno muwakkilkeen. waxayse ugu darneed markii qareen ka mid ah qareenada uu soo jeediyay in maxkamad qaadista ay leedahay maxkamadda sare. maxkamadda gobolka Banaadir ikhtisaas uma laha dacwadda qaadisteeda anoo u cuskanaya qodobada tan xeerka nidaamka garsoorka oo qodobka 5aad tirsiga 3aad C iyo qodobka 10aad tirsiga 5aad xeerka nidaamka garsoorka waxay jideynayaan in maxkamadda sare ay ikhtisaas u leedahay qaadista dacwadda xisaabaadka. inkastoo fursadda ugu badan ay qaateen qareenada haddana xafiiska xeer ilaalinta ayaa markiisa qaatay dooda. waxa uu ku adkaystay inay ku saxan yihiin qodobada sharciga oo soo cuskadeen ee dooda. waa kuwan Farxaan Xuseen Maxamed iyo Yaxya Maxamuud Saciid oo kaga wakiil ah fadhigan maxkamadeed xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka. anaga eedeena way caddahay. eedeysanayaasha waxaan ku eedeynay inay luusadeen xoolo ummadeed, sameeyeen dukumeenti been abuur ah. qof kastana mas'uuliyadda uu lahaa waxaan ku caddayn doonaa dulucda dacwadda. laakiin inay dambigan wadajir u sameeyeen maadaama ay hal hay'ad ka tirsanaayeen, hal hay'ad ka wada shaqayn jireen, barnaamijyo kala duwan oo inta badan ahaa barnaamijyadii lacagta lagu dhunsaday ay ka shaqaynayeen. waxaan ku kala qeexi doonaa mas'uuliyadaha ay kala leeyihiin dulucda dacwadda. mudane gudoomiye haddaan u soo laabto objectionka ay sameeyeen eedda ay ku eedeysan yihiin eedeysanayaasha maxkamadda horjooga kuma eedeysna oo kaliya 240 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya. waxay ku eedeysan yihiin qodobo badan. markastana ikhtisaaska waxa uu leh 240 maxkamadda gobolka Banaadir. sidaa daraadeed inay ogaadaan weeye 240 oo kaliya ma aha 240 ma aha ilaa 5 qodob 6 qodob bay ku eedeysan yihiin. gargudoonka dacwadan garyaqaan Cabdiraxmaan Saciid Axmed ayaa u sheegay dhinacyada dacwadda inay soo saari doonaan qaraar sharciyeed sidaasna uu ku xirayaan fadhiga maxkamadda ee maanta.
maxkamaddu waxay markay dhegaysatay doodda is-hortaagga qareennada si waafaqsan qodobka 105 sidoo kale maxkamaddu markay dhegaysatay doodda difaaca xafiiska xeer ilaalinta sida uu qabo qodobka 106 faqradiisa koowaad xarafkiisa b maxkamaddu waxay ka soo saari doontaa is-hortaaggaasi ay qareennadu keeneen qaraar waafaqsan qodobka 106 waxaanay maxkamaddu muddayn doontaa kiiskani maalmaha soo socda maxkamaddu maanta halkaa ay noogu joogto wabilaahi tawfiiq maxkamadduna inoo xidhan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdiqadar maxamed xasan oo warfidiyeenada la hadlay kadib fadhigii maxkamadda maanta ayaa fariin u diray baarayaasha iyo shaqaalaha dowladda hal la ogaado ruuxii lagu soo eedeeyo musuqmaasuq in la horkeeni doono garsoorka inuu halkaas la horkeeno garsoor inuu halkaas ka helayo inuusan ka heli doonin halkaas hiilo baalmarsan sharciga uuna wajihi doono ciqaab sharcigu saarayo iyadoo aan looga naxariisan doonin waxa aan farayaa dhammaan hay-adaha baarista u qaabilsan sida xeer ilaalinta iyo booliska in ay indhahooda furaan lana socdaan xafiisyada iyo dhammaan hay-adaha dalka cadaaladana ay horkeenaan qof walba oo ku eedeysan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho